بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaasheena ku xiran channelkan YouTube-ka Ismaaciil Aqila kusoo dhawaada barnaamijkeena xigmad qaybtiisa saddexaad oo aan ku guda jirno qisadii asxaabul fiil qaar intaan barnaamijka gudgalin fadlan walaal hadaad nagu cusubtahay channelka subscribe saar si dhiirigelin inoo noqoto sidoo kale barnaamijyadeena haddii aad ka heshay like saar share garay si dad kale ay ugu faa'iideystaan sidoo kale gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka koowaad ee hela waxyaabaha xiisaha badan ee Allah halkan aan ku soo gudbino ciidankii Abraha waxay soo gaareen magaalada Daa'if waxaana deganaa qabiil reer Thaqiif oo caabudi jiray sanam weyn oo la dhaho Laata kadibna waxa u soo baxay Abraha madaxii reer Thaqiif oo la dhaho Mas'uud ibn Mactab wuxuuna ku dhahay Abraha boqorow annaku waxaan haysanaa ma aha Kacbadii ee waa sanam aanu caabudno waxaan ku darayaa nin ku tuso dhanka Makka ka xigta oo garanaya jidka loo maro waxayna ku dareen nin la dhaho Abu Ruqaal markuu Abu Ruqaal marayay Maqmas ayuu dhintay xabaashiisana halkaas ayay ku taalay carabtuna way dhagxin jireen markay xabaashu Abu Ruqaal soo maraan oo waxay dhihi jireen waa kii colkii Abraha tusay Makka Abraha iyo ciidankiisa markay gaareen Maqmas ayuu Abraha u diray Makka ninka la dhaho Aswad ibn Maqsuud wuxuuna soo dhacay geel ay reer Quraysh lahaayeen geelkaas waxa ka mid ahaa 200 oo neef oo uu lahaa Abdul Muttalib oo ahaa madaxii reer Quraysh xilligaasi markaas ayay isku dayeen in reer Quraysh iyo qabiiladii kale ee deganaa Makka inay la dagaalamaan Abraha balse waxay ogaadeen inaynan haysan awood ay iskaga dhiciyaan kadibna faraha ayay ka qaadeen Abraha iyo ciidankiisa Abraha wuxuu diray nin kale oo la dhaho Xanaada oo reer Cimayari ah wuxuuna Abraha ku dhahay u tag madaxa Quraysh oo u sheeg inaan u imaanin inaan dhiig daadino ee waxa kaliya aanu u nimid waa inaan dumino Kacbada kadibna Xanaada warkii ayuu u sheegay Abdul Muttalib iyo inuu Abraha rabo inuu la kulmo Abdul Muttalib dabadeedna waxa soo baxay Abdul Muttalib isaga iyo qaar ka mid ah uwadkiisa waxayna yimaadeen xaruntii ciidanka Abraha wuxuuna dadka weydiiyay Abdul Muttalib ninkii la soo xiray ee Duunafar wuxuuna ku dhahay Duunafarow mala hadli kartaa Abraha inuu ka joogo Kacbada wuxuuna dhahay Duunafar maxaan ku qaban karaa anigii ayaaba xabsi ku jira oo waxaan sugayaa xilliga la dilayo hase ahaatee waxaan garanayaa ninka maroodiga hogaaminaya ee la dhaho Unays ee u tag isaga ha kula hadlo Abraha Unays ayaa u tagay Abraha wuxuuna ku yiri boqorow ninkan waa Abdul Muttalib waana nin madax ah wuxuuna dadka masaakiinta ah ku quudiyaa banaanka iyo buurtaba ee la hadal oo is-afgarta Abraha wuu ogolaaday inuu la hadlo Abdul Muttalib qaybtii saddexaad intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa qisadeena asxaabul fiil inta qaybta afraad aynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo nooli kulanti dambe oo xiiso leh